madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan filaya in uu kulan la qaato madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Kulankan ayaa la sheegay in la qorsheynayo inuu ka dhaco dalkan walaalaha nahay ee Djibouti. Labada mas'uul ayaa dhawaan dalkaasi u safri doona iyadoona sidoo kale ay madaxweynayaasha dalalka Itoobiya iyo Djibouti ay goobjoog ka noqon doonaan kulankan. Isla wadanka Djibouti waxaa ka dhici doona kulan kale oo looga hadlayo xiisadda u dhaxaysa dalalka Djibouti iyo Eritrea kaas oo ay garwadeen ka yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Labada kulan ayaa ah kuwa xasaasi ah haddii aan si gaar ah u eegno kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Somaliland ayaa muujinaya ifafaalo wanaagsan oo ku aadan isku soo dhawaanshaha dowladda Soomaaliya iyo Somaliland taa oo haddii dadaal lagu bixiyo keeni karta in dib loo soo celiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed oo ah mid muhiim ah lama huraan ah. Labada mas'uul ayaa hore ugu kulmay gudaha dalka Itoobiya horaantii sanadkan iyagoona ka hadlay xoojinta xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland si loo ambaqaado wada xaajoodka hore u socday. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan haysta fursad aad muhiim u ah oo uu wada ugu furi kara isu keenida Soomaali weyn waxa uuna jeexi karaa dhabo wanaagsan ayna fududahay in isaga iyo madaxda ka dambaysa halkaasi kan sii ambaqaadaan geedi socodka laga maarmaanka ah ee isu keenida Soomaali weyn oo mid ah. Kulanka labada mas'uul ayaa waxaa si gaar ah diiradda lagu saari doonaa sare u qaadida iyo xoojinta xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Soomaaliya iyo Somaliland waxaa hore ugu socday wada hadallo hoose sida kulankii golaha qaramada midoobay ka sheegay ergeyga u qaabilsan Soomaaliya Master James Iswan oo xaqiijiyay in labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogto ah. Marka ay noqoto xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland waxaan dhiirigelinayaa in wada hadallo heer sare ah ay socdaan isla markaana labada dhinac ay muujiyeen inay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadiyaan wada xaajood dheeraad ah ayuu yiri Master James Iswan. Waxaa jirta rajo wanaagsan oo ku aadan in guulo hordhac laga gaaro wada xaajoodka aan laga maarmi karin ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland si loo helo Soomaali weyn oo mid ah